quraanka wuxuu ku leeyahay wacaashiruuhunna bilmacruuf wanaag kula dhaqma gabdhaha fain karihtumuuhunna facasaa an takrahuu shay'an wayajcal allahu fiihi khayran katiira fain karihtumuuhunna haddaan nacdaan gabdhaha facasaa an takrahuu shayan waxaa laga yaabaa shay inaad nacdaan wayajcal allahu fiihi khayran katiira ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu dhex yeelo khayr fara badan uu dhex dhigo ilahi subxaanahu wa tacaala sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii uu siiyo awlaad uu ku irsaaqo zawjka iyo zawjada haddii uu ku irsaaqo awlaad waxaa looga baahan yahay markaasi inay awlaaddooda tarbiyadooda ay ku dadaalaan tarbiyatul awlaad waxay bilaabataa markaasi dadka waxay yidhahdaan markaasi markii carruurta la dhalo kadib ayay bilaabaan ilmaha sidee lagu tarbiyey karaa laakiin waxay bilaabataa intii uusan dhalinin ilmaha sidee ku bilaabanaysaa waa in ilmaha aad dhalaysid aad u doortid xaas wanaagsan zawjo wanaagsan waa inaad u doortid sidoo kale haddii aad gabar tahay waa inaad ilmaha aad dhalaysid aad u doortid zawj wanaagsan waa inaad u doortaa meeshaas ayay tarbiyada ka soo bilaabanaysaa soomaalidu waxay yidhahdaan ilmahaaga hal mar baa u yeelisaa waa markaad hooyadood aad u dooraysid waana sax ilaahi subxana wa tacala qur'aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara naftiinna iyo ahalkiina ka badbaadiya naar ka badbaadiya carruurta in la tarbiyeeyo wax la baro waxay ka mid tahay markaasi waxyaabaha wanaagsan ee looga baahan yahay waalidka looga baahan yahay aabbaha looga baahan yahay hooyada looga baahan yahay wa ilaa haddii kale ilmihii haddii aan la tarbiyeynin oo ay tarbiyadii ay ka halaawdo waxaa dhacayso inay markay weynaadaan ay ku caasiyoobaan waalid cisyaankaasi maxaa keenay waalidka inay ku caasiyoobeen waxaa lagu caasiyoobay intaysan ayaga waalidka ku caasiyoobin ka hor waalidka intay yar yihiin ilmaha haddii uusan ku dadaalin uusan wax barin tarbiyadooda uusan wanaajin waalidka isagaa ku caasiyey ilmaha ayagana hadhow inay ku caasiyaan wax la yaaba ma noqonayso maxaa yeelay inta aysan ayaga ku caasin ka hor ayuu waalidkaa carruurta ku caasiyey nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kullu mawluudin yuuladu cala alfidra mid kastoo la dhalo waxaa lagu dhalaa fidrada diinta islaamka lagu dhalaa fa abawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labadiisa waalid ayaa waxay ka dhigayaan hadday yahuud yihiinna yahuuday ka dhigayaan yahuudi hadday nasaare yihiinna nasraani ayay ka dhigayaan hadday majuusta iyo qolada dabka caabudana majuusi ayay ka dhigayaan laakiin ilmaha markii la dhalaayo fidrada ayay ku dhashaan xataa ilmaha markaasi gaalada ay dhalaan markay dhalanayaan fidrada islaam ayagoo ah oo muslim ah ayay dhashaan laakiin waalidkii ayaa bedelaayo oo waxay ka dhigayaan mar walba waxay yihiin hadday yahuudi yihiinna yahuud ayay ka dhigayaan hadday majuusi yihiinna majuus ayay ka dhigayaan marka tarbiyada awlaadda waa wax markaasi aad u muhiim ah waxayna ka soo bilaabataa guriga ayay ka bilaabataa inta badan dadka muslimiinta ah xaaska ayaa guriga joogto aabbahana wuu soo shaqeeyaa bannaanka ayuu aadaa hooyada maxay ku mashquulsan tahay ilmihii tarbiyeyntooda ku dadaalidooda iyo inay markaasi waxbarashadoodii iyo inay ka fikirto ilmihii ay ilaaliso laakiin gaalada sidaas ma ahan way ka duwan yihiin waxay markaasi sameeyaan hooyadii in guriga laga saaro waa inay shaqaysata ayay leeyihiin hooyadii aabbihii waa isku xaq aabbihii wuu soo shaqaynayaa hooyadiina way soo shaqaynaysaa gurigii yaa looga tegayaa marka ilmihii marka way iska dayacmayaan dadka derbiyada jiifo ayay iska noqonayaan ayaga qasadka ay ka leeyihiin waa inay ilmahaas baadiyeeyaan fikraddii marka yaa loo soo arooriyey annaga ayaana loo soo arooriyey hooyadii inay shaqayso dadka qaar waxay markaas u ololeeyeen dumarka waxay yidhahdaan waa inay dumarka shaqaystaan waa inay guriga ka baxaan waa inay markaasi waxaan sameeyaan waa fikraddaasi halkaas ayaa laga keenay carruurta sidoo kale waxyaabaha wanaagsan in loola daado waxaa ka mid a qur'aanka in la baro ilmaha qur'aanka ay xifdiyaan
waxay ka mid tahay sifaadka wanaagsan oo dadka Soomaalida ay leeyihiin caalamka kale kama jirto waa ilaahay mahadiis Soomaalida dadka markaas waxay ka mid yihiin caalamka ugu horeeya xagga xifdiga quraanka marka la yiraahdo waan arin wanaagsan oo markaasina lagu amaano marka arintii inaan ku dadaalno quraankii ilmihii la baro la xifdisiyo waxaa dhacaysa mararka qaar ilmaha qaar ayagoo quraankii la barin ama quraankii uusan dhammaynin ama quraankii uusan xifdinin in madaaristii laga bixiyo oo la geeyo iskuul marka ilmahaasi ma baranaya quraankii waa maya way ku adkaanaysaa quraankii inuu xifdiyo marka waxaa wanaagsan marka ilmaha marka hore in quraanka la baro quraanka la xifdisiyo kadib markaasi madrasa iyo wixii la geey lahaa la geeyo marka insha Allah ta'ala kalimadeedana waxay ku saabsaneed markaas tarbiyatul awlaad carruurta markaasi la tarbiyeeyo kalimadeeda halkaas ay ku dhantahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam wa billahi tawfiq